أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. halkan maanta waxaan ku qabanaynaa challenge cup oo lagu qabanayo West London. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuu succeed-ka uu sameeyay iyo horumarka aanu gaarnay aanu dhalinyaradii inaan isku keenno magaalada London. maanta waxaanu gaarnay heer inaanu ka saaro London oo laga yimaado dabadaha Birmingham iyo Milton Keynes. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Rashid Jaamac. waxaan organizer-iska this ciyaarahan oo sanad walba ka dhaca xaafadda Hayes oo loo qabto aan u qabano dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool UK meel kasta ka yimaadeen. tournament-kan wuxuu socday last 4 years buu socday. waxa ka soo qayb gala sanad walba ilaa 12 team oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed. waxaan sanadka hore inaan koobkan koobkiisa inaan noqono champions ka ah haddana mission baa weli taagannahay. waxaan u nimid inaan difaacno koobkii aan sanadka hore qaadanay inkastoo football tahay laakiin kolley baan waxaan u nimid inaan difaacno koobkeena sanadka hore qaadanay. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد موسى معلم كبيرمغهام. My team name is Olympia 808, and the reason why it's called Olympia 808 because we started on the opening day of the Olympics, which was the 8th of August 08, hence Olympia 808. We've been established as a team for almost 1 year and a half, in which last year we took part in Eurosong. Alhamdulillah, we reached the semi-final. We've lost semi-final to Leicester, but nevertheless was an excellent achievement from my part and from the part of the players. And we play in the Sunday League. This was our first league in which we finished 4th. Could done better, but Alhamdulillah finishing 4th. And this is the first Somali tournament that we're entering in London, and hopefully we'll make sure, inshallah, to come with our best discipline and to bring in our good behavior and our good football, inshallah ta'ala. And the other reason tournament kan uu kaga duwan yahay tournamentada hore waxa weeyaan waxaan u qabanaa 1 minute silent ama aanu u bareynaa Ilaahay in dadka Soomaaliyeed ku dhimanaya magaalada Muqdisho waxba aan geysanin inaanu u ducayno. Junior All-Stars, brother. MashaAllah, bro. Basically, we've been together for 3 years now, from West London area, more of Hounslow and South put together with a few guys from around Shepherd's Bush and different areas. 3 years in the Middlesex County League, started Division 3, got promoted to Division 2. This year we got promoted to Division 1. We won the Middlesex County Cup this year as well. So far, 1 trophy. We're going Canada in the summer. Other than that, not really much to say. Inshallah, this works out for us. Have a strong belief that this year is going to be our year. So just wait and see. My name's Mohammed. I'm representing Wadbury FC. We're from South London, South West London, Streatham. We've been together for about good, I would say, good 10 years now. So it's good. We're good. It's the best bunch of players we had for a long time now. So yeah. Looking by the performance we played today, you know, we want to go all the way. To be honest with you, we want to win the tournament. We don't want to just take part.
magacayga Rabiic baa la yiraahdaa kooxda macalinka waxaan ahay Al-Hijra kooxdan Al-Hijra waxay dhisnay muddo ilaa 94 oo koox weyn marka tournament-kan sanad walba waan galnaa sababtoo uu ka mid yahay tournament-kan regular-ka u galno السلام عليكم محمد شرا لي رهدا كوتشكا اوسكار اوسكار waxaan nahay kooxan magac weyn lahayn laakiin si iminka insha Allah waan soo baxaynaa 90% of the players in fact all of them were East London hopefully insha Allah this year we're very strong marka hopefully there's a possibility of us winning it but there's plenty of good teams in it khair insha Allah only time will tell kooxda magaceeda kooxda London Stars أنا معلنك كوحدة لندن ستار يمكن كل شيء قاعد يسوي ده أنا وانك بدومية كوحدة لندن ستار لكن سنة بعد العيارة وكسوق قدرنا إن شاء الله حافظة وكتبان كان ومبلي إير إن شاء الله والله تيم كسنة كان كل لندن ستار ولا بدي قناة مركا إن شاء الله أنا نقول السنة وبدنا إن شاء الله إنك استمرت هذا عيار بدنا نسوي عيارنا ودك جيبوتي هذا كان من جامبيا هذا وحنا كسرنا كندا سويدن لكن إن شاء الله وكنا وتجابي نوصيتها بس عيارنا إن شاء الله magacayga waxa weeye Mootaha Jacayl Bootaan ka timid tuulada Miltikins markaas waxaan ciyaaray competition badan ilaa haddana waxaan insha Allah filaynaa inaan rajeynaa inaan guul ka soo hoyno competition-kan dad badan aad lama yaqaanaan laakiin waxaan rabnaa aan dogsaanahay waxaan finally aan ku mahadnaqayaa waxa weeyaan aan u mahad celinayaa sorry waxa weeyaan organizerska tournament-kan oo sanad walba ka soo organize gareeya tournament-kan waxaan kaloo mahadnaqayaa waxa weeyaan tiimamka sanad walba ka soo qayb qaata dhalinyarada keena aad idaabto badan leh annagana na caawiya hadday noqoto xagga organizing-ka xagga contribution-ka and finally waxaan u sii kaloo mahadnaqayaa waxa weeyaan liban jaamac oo sanad walba waqtigiisa halkan yimaada oo kamarada ka duuba oo waqtigiisa contribute gareema ama volunteer nagu caawiya insha Allah iyo the Somali TV Universal kuwaas oo nagu barnaamij qaaday inay soo deyn doonaan every Sunday ama ay news ku soo dar doonaan programkan